Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiiro cusub iyo qayb cusub. Waa qaybtii labaad ee buugga digniin. Waxaa ku soo dhex jirnay faahfaahinta sinada. Waxaa ka cududaaranayaa in aan codka si fiican loo fahmayn meelaha qaar, marka fadlan shaashada kala soco. Muhiimadu waa in aan idiin soo gudbiyo buugta. Marka fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe garayso. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan ka codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buuga aad halkan ka dhageysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalside. Marka fadlan si wacan u dhageyso buuga. Waxaana ku bilaabaynaa sidan. Ogeysiis horta, ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhageysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sarreeya dadka uu la nool yahay. Marka daawade waxaa kuu rajaynayaa in aad nugaysiiso qoto qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Ogowna haddii aad isku qancinaysi waxaan waa application, codkiisa lama dhagaysan karo, waa mid adig ku taal. Anigu waxa u dhididayaa dadka faa'iidada raba oo raba in ay wacyigood dhisaan. 40 daqiiqo oo ay 10 bog ku akhrin lahayd kuugu bedelo 10 daqiiqo oo dhagaysiga iyo 5 bog oo hal mar ah. Nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, Allahayow waxaan kaa magan galay baraska iyo waalida iyo juudaanka iyo cudurrada xunxun. Soo koobida sinada. Faysal waxa uu sheegay inay khudbadu ku saabsan tahay mid ka mid ah dembiyada waaweyn, taas oo ah sinada. Waxa uu sheegay inuu ku soo qaadan doono ciqaabka ka dhalanaya iyo cidhib dambeedkeeda. Waxa uu sheegay in sharcigu marka uu ogaado dhibaatada shayga ka dhalanaysa iyo aafada uu bulshada ku hayo, inuu adkeeyo ciqaabta iyada oo loogu gol leeyahay inay dadku ka taxadaraan. Shiikhu waxa uu soo qaatay aayado iyo axaadiis ka hadlaya sinada, sida kuwa hoos ku qoran. Ilaahay wuxuu yidhi, sidoo kale Nebi Maxamed wuxuu yidhi. Sheekh Faysal waxa uu xusay in Alle ishortaagay waddo kasta oo fududayn lahayd in qofku ku dhaco sino, sida in la booqdo guryaha dadka gayaanka ahi degan yihiin, inay gabadhu muxrim la'aan safarto, in dumarka lala gaar noqdo waxaana uu soo jeediyey in dhalinyaradu ka fogaadaan filimaanta xunxun ee gaaladu samayso. Waxa uu sheegay inay adduunka maanta la dhacayaan wixii reer Caad, qowmuluud iyo ummadihii la midka ahaa lagu cadaabay, balse dulqaadka Alle iyo inaynu ummadii Nebi Maxamed nahay awaadeed la inoogu dhaafayo, iyo sidoo kale in daartani ay tahay daartii camalka, ciqaabkiina uu dambeeyo. ciqaabta ka dhalanaysa waxaa shareecadu u qaybisay xukunka qofka sinaysta 2 qaybood. hal qofka dhalinyarada ah ee sinaysta islamarkaana aan guur hore soo marin waxaa lagu ciqaabayaa 100 jeedal. halka 2 qofka guur hore soo maray ee sinaysta waxaa lagu dilayaa dhagax, taas oo ah ciqaab aad u adag, in qof isagoo nool sida dhagxaan loola dhacayo, nafta laga jaro. Calaamadaha qofka sinaysta. Dadka xumaantaas sameeya waxaa lagu ciqaabayaa cudurro aan lagu salidin dadkii inaga horreeyey, iyada oo taasi ay maanta muuqato. Sidoo kale waxaa ka mid ah wejiga oo madoobaada, laabta oo cidhiidhi noqota, risiqa oo ku adkaada, diiqad iyo nolosha qofka oo raaxo beesha. Waxyaabo kale oo sinada ku saabsan ayuu shiikhu sheegay oo aanan qoraalka ku xusin. Sinada Allah naga haayo. Ugu horeyn, intaan u gelin dhaxalka iyo dhibaatada siyanada, waxaa xusid mudan in sinada lagu xaarameeyey dhammaan kutubihii la soo dejiyey, oo xukunkeeduna isku mid ahaa rag iyo dumar, shabaab iyo shayb. Dhilaysiga sinada jinsi u gaara malahan, walow dadku sheegaan in labada jinsi midkood ku badan yahay samaynteeda, balse waxaa xadiis saxiixa ku soo
arooray in alle suu uu abuuray hal eber dareen shahwo 9 ka mid ah. Dumarka ayaa la siiyey halka soo harayna ragga ayaa la siiyey. Silamida alle suu wuxuu abuuray hal eber xishood 9 ka mid ah. Dumarka ayaa la siiyey halka soo harayna raggu u baaqi noqday. Waxaa halkaa culimada diinta ku xeel dheer ka tiyoodeen in dareenka dumarku ka xoog badan yahay midka ragga haddii aan lagu kaalmeyn lahayn xishoodka ay halis ahaan lahaayeen dumarka shartooda. Haddaba sinadu waxay ka mid tahay dembiga labaad ee alle agtiisa ugu weyn marka laga reebo shirkiga. Qatarteeda taasaa u daliilaa. waxaa sidoo kale laga wariyey imaamu Shaafici ama Sayid Ali Abi Daalib midkood in ruuxii ku sinaysta raash qurux badan in isna gabartiisa, naagtiisa, walaashiis ama hooyadiis looga sinaysan darbi cidlaa xumaanta ay leedahay awgeed. marka ruux kastaa waxaa la gudboon inuu ka fogaado sinada, waayo waa deen layskaga guddo dunida guudkeeda. ruuxii ummada nabad galshaa isna ehelkiisa ayaa loo nabad galshaa adduun iyo aakhiro. qarnigan iyo kii tegayba waxaa dunida ku soo batay cudurro aan la aqoon daawadooda iyo sababaha dhaliyey. tusaale ahaan, cudurka AIDS-ka waxaa sababay dhilaysiga sinada. dhakhaatiir u dhalatay dalka France ayaa sheegtay in cudurka AIDS-ka oo luqadooda lagu yiraahdo sida in uu la macno yahay sinada oo diinta Islaamku sheegtay dhibaatadeeda. sidaa awgeed waxay dadkooda ku booriyeen in ruux kasta lamaanihiis ku ekaato oo xadgudubka sharci darada la joojiyo. dhibaatooyinka iyo goobaha sinadu ku badan tahay. dhibaatooyinka ugu daran ee laga dhexlo sinada waxaa ka mid ah ruuxa oo kasabkiisa yaraado, nuurka wejiga iyo jirka oo daciifo, tabardari joogtaa, dabeecad qalafsan oo uu dadweynaha kula dhaqmo, xishood darri iyo waxyaabo kaloo aad u xunxun. goobaha sinada laga helo waxaa ka mid ah shineemooyinka oo sinada laga barto, daawashada ilmada, waayo waxaa hubaalaa in TV-ga daawashadiisa laba arrimood laga barto oo kala ah dhilaysi ama tuugeysi. hatooyi labadaas arrimood midkood ayuu ku sifaysan yahay daawada ilmida anshaxa daran, waayo fariistaas ayeen dadka gaarsiiyaan ilmida. waxaa kaloo sinada laga barta goobaha xunxun sida meelaha loo qayilaa doonto oo waayadan dambe isku beddeshay in haddii laan la calaliyo lugna la jiido naruuro tahay. silamida goobaha dhalinyaro ku badan tahay sida jaamacadaha, dugsiyada sarsare iyo coligayada ayaa ku hadal haynta haasaawaha ku badan yahay halkaas oo shaydaanku wax maleegi karo maadaama shabaab ku badan yahay goobahaas. sidee looga hortagaa sinada? alle wuxuu raga armay inay indhahooda ku eegin dumarka dakarkoodana xadaan, sidaa ayay adduun iyo aakhiro libaan ku helayaan. silamida alle wuxuu dumarka faray, wuxuu ragga faray iyo inaysan jirkooda muujin oo uu cawro yahay inta yaree laga reebay maahe. tallaabadan waa habka keliya ee sinanda looga hortegi karo. waxaa kaloo habboon waxyaalaha munkarka meeshuu ku badan yahay inaadan tegin, sida rubaayadaha, shineemooyinka iyo awoog xibin kastoo jirka ka mid ah inay sinaysan karto, balse coorada hoose ugu daran tahay. macnaa dhagaha, indhaha, gacmaha waa lagu samayn karaa sinno, dambina waa kaa soo garayaa. waxa aad iyo aad iigu yaab badneed maraan nasiib u yeeshay meeluu qudabad ka jeedinayay baadari Francis oo ku sugnaa dalka Djibouti inuu dadka kula dardarmayay inay sinada joojiyaan oo ruux kastaa ku ekaato wuxuu haysto. murtida Soomaalida waxaa ka mid ah haddaad aragto habar balaayaa waxay ahaan jirtay gabar balaayaa, taasoo loola jeedo qof ah. wuxuu caado ka yeeshay rayanatiisa, weynaantiisana waa dabo socotaa. haddaad dhilay ama dhilo ahaan jirtay, faracaaga waa ku soo duxee ileen deen qabaad aheedee ilaahow magantaa. soo la yaab maahan in ninna uusan jecleen in walashiis, hooyadiis ama gabartiisa laga dhilaysto, misena isagu sinaysan gabadha oo falkas xun ku samee. nin ayaa dhalay, la dhashay ee ninkii doonayo in awlaaddiisa u nabadgasho iska nabadgeli. tolo waayo arag
dadku waa danbaabaan waxaase u qeyr badan kuwa intay dembi galaan ilaahooda soo xasuusta oo dembi dhaaf weydiisto. ruux marxuum ayaa ii sheekeeyey wuxuu ii sheegay inuu aad iyo aad shaydaanku uga xoog batay oo uu ka sinaysan jiray dumarka ay ku jirana kuwooda xaslayaasha. ruuxaas qudhiisu xaas iyo gabdho badan ayuu lahaa, weligiis kumusan kirinin dhibka uu raga kale ugeysan la aargudi doono ilaa uu kuwaano qaatay oo indhihiisu ku arkay xaaskiisa oo nin kula jiifo sariirtiisa iyo gabadhisa oo darbi xun looga diin gudaayo. marka alle miyuusa cadaalad ahayn oo xumaam in xuman lagu gudo nafarin? marka taas waxaa laga qaadan in ummadda layska nabadgelso si nabad aad u hesho. dhalinyarada hadda kadib baran doonto waxaan leeyahay waa godkii aad ku mustaqbal weyn lahayd haddii aad hadda wadid nawlkay muslimkow ka fogow oo samayso jadwal yar booskiisa geli. mahadsanid. waxaan rajaynayaa inaan talooyinkan digniintan iyo waanadan aad qaadataan. halkaa ayuu ku eg yahay buugii digniin. aniga ka shakhsi ahaan waxaa idinkula talinayaa dhow tilaabo in aad samaysaan si aad caadadan iskaga joojiyaan. hal haddii aad wiil tahay ku tuko 5 salaadoodba masaajidka. haddii aad gabar tahayna salaadaha xilligooda ku tuko. 2 mar kasta meesha aad seexati ka ilaali taleefankaaga. 3 mar kasta oo aad damacdi in aad samaysay caadadaas soo qaado kitaabka qur'aanka ah oo akhriso. fadlan muuqaalka like saar janaalkana subscribe garayso. mahadsanid.